rag hubeysan oo afduubtay laba xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Halkee ayaa lagu afduubtay? Xildhibaanadan deegaan ahaan xaggee ka soo kala jeedaan? Ma dhabba in mooshin ka dhana dowladda federaalka ay diyaarinayeen? Warbixintan ayaynu ku soo koobi doonaa. Muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiina oo meel fog gaarsiiya qaybta commentiga aragtidiina kaga soo dhiibta. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa koox hubeysan oo xalay hotel ku yaala magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ka kaxaystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya ka waday gudaha magaalada Nairobi caasimadda Kenya. Xildhibaanadan ayaa kala ahaa xildhibaan Xasan Cabdinuur iyo xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin, waxaana labaduba ay ka tirsan yihiin golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana gaari ku ritay rag hubeysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin laamaha ammaanka dalka Kenya. Ila wareedyo xilkas ah ayaa inoo xaqiijiyay in labadan xildhibaan oo ka soo baxay hotel laguna horjaray gaari kadibna lagu qasbay inay si xoog ah ku raacaan, waxaana halkaasi lagu weydiiyay su'aalo dheeraad ah. Intaasi kadib waxaa la soo wariyay in labadan xildhibaan la sii daayay saacado kadib, isla markaana ay dib u heleen xorriyadooda, laakiin ragga watay iskuma aysan sheegin waxa ay ahaayeen iyo ujeedka ay u qafaasheen labadan xildhibaan. Su'aalaha wax laga weydiiyay ayaa waxay ku saabsanaayeen dhaqdhaqaaqyadooda la sheegay inay uga soo horjeedaan hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayna ku howlan yihiin abaabulka mooshin sida ay ku warameen ilo xog ogaal ah oo ayna ka soo xiganay xubno ku dhow xildhibaanadan. Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka dalka Kenya iyo kan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan falkan lagula kacay labadan xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka. Arrintan ayaa walaac xooggan waxa ay ku abuurtay xildhibaanada iyo xubnaha ku sugan dalka Kenya oo qaarkood degan gudaha dalkaasi. Nairobi waxaa ku sugan siyaasiyiin badan, waxaana magaaladan shirar uga qabsoomay xubno mucaarad ah oo ka soo horjeeda madaxda sare ee dalka, kuwaas oo qorsheynaya in halkaasi ay ku soo karkariyaan siyaasad ku saleysan mucaaradad adag iyo si la mid ah ololaha doorashada, maadaama muddo xileedka 2 sano ee ugu dambeysay ee dowladda federaalka Soomaaliya la galay.